السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا السلام دمانتين مeel kastoo daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhawaada waxa inoo sii socdo casharkii alfabeetka ahaa ee peeska ahaa sida daraadeed waxay inoogu joogtay n soo marka waxaan ka qaadi doonaa o ilaa iyo z aan dhamaystiri doonaa maanta so o for oil waa silida, p for people waa dadka, q for queen waa amiirada ama markaas qof dumar ah oo jaga sare haysa ba waxa loo yaqaan queen. R for rain waa roobka, S for sun waxa loo yaqaan qorraxda ama cadceedda, T for tea waa shaaha, U for umbrella dhawaaq u fiirso umbrella waa talada, V for voice waa cod bila aadanka codkiisa, W for window waa daaqada, X for X-ray waxa loo yaqaan bahashan rajsada qofku markuu jabo la saaro ayaa waxa loo yaqaan X-ray. waayahay Y for year laba siyabood labadaba waad ugu dhawaaqi kartaa inaad year tiraahdid iyo inaad year tiraahdid waa sanadka Y for year waa sanadka. Z for zebra waa dameer dubadeedka ama dameer farowga waxa loo yaqaano waa dameerka aan inta badan la ran wuxuu ku nool yahay bartamaha Afrika oo waa dameer barabara leh, ximaarul waxsha ayaa loo yaqaanaa, marka zebra ayaa loo yaqaanaa af Englishka. waa hagaag laba iyo aan iraahdo 26 eray ayaa halkaas inoogu dhamaystirmay, marka waxaa la rabaa insha Allah taala inaad si fiican u soo xafidaan. haddii casharaanta qaar ay ku dhaafaan waxaad si toos ah uga daawan kartaa adigoo booqanaya qaybta search ku qoraya faraj.com oo ah channel dhawaan la aasaasay